مصبيحي إسماعيل ويسوقيين حسن شيخنا وحبوك أوجي هاي صومالنا ولا وريرينيا warbaahaashu baadidu meesha jirtay hal laga doono nin reer waqooyi oo midnimo aaminsan baan ahay laakiin eedo koonfur baan saaray Ethiopia isbedeli mayso weligeed waxa waaye miniliig wixii istaraatiijigu isbedeli maaya waxa isbedelay waa Soomaali ma dhagax la dagaalamaysa mise waxa iska dhicinaysa kii kugu dhuftay Ethiopia waa dhagax la inagu soo tuuray xaqada marka laga hadlo quwado kale oo ka dambeeya oo aynan u toogahayn dareenkoodana aynaan qabin ayaa jira أنا وها آمسنا هاي Soomaaliga waxa looga adkaaday Soomaalinimada Ethiopian waxa looga adkaatay Ethiopianimada macnaha waxa weeyaan Soomaaligu waa Arab oo kale waa geeli jir oo geeli jirkii wuxuu yaqaanaa ku dhifo dhaf Ethiopiankuna waxa yaqaanaan istaraatiijiyad fog oo dheer dagaal kastii oo la galay dadka buurta guusha horana ka lahay guusha dambana yakala mana aanan arag culimo intay soo saaraan hadal oranaya hebelow waad gar daranta ama hebelow waad gar leedahay laakiin dadka dhintay ay culimadu u tacsiyaysaa isdaayana way tiraa haddii marka ay sii socoto diblomaasiyadan Soomaaliya guulaysanaysa waa haddii madaxda Soomaalida isteedada ay heshiiyaan qaranka ay hormariyaan cadowga hoos oo Soomaaliyana laga guulaysto wadankii saas ahaa 2018 يا قبصدي لين كان ولا بقبصدي أبي أحمد بقبصدي مركو ودنك قبصدي طبعا ناجر الأساس بعد عين كوفيد 19 بيمي ودنك دقاليس هوس بعد بحاكو حقي نوفمبر 20 واحد بيوضي تكرير دقالك تكرير بيوضي ودقاليه ودنك آذو بابي وحلا يراها إلى 10 بليون باكو بابي حتى نقطة دامج دقالها waxaan isugu nimid xalaqo ka mid ah xalaqooyinkii ay soo diyaarin jirtay barnaamijkii fagaaraha oo uu ka dhacayo mujtamarka ayaana barnaamijka fagaaraha waa program wacyigelin ah oo arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliya looga doodo waxaa la aasaasay 2012 la aasaasay in Minneapolis wuxuu qabtay programkaas ilaa 29 xalaqo xalaqadan caawan u fadhino waa tii sodonaad weeye cinwaankeeduna waxa uu noqonayaa xeebaha Soomaaliya iyo damaca Ethiopia waxaan ognahay waayahan dambe in ay jirtay dhiilo fara badan oo ka dhex taagneyd Soomaaliya iyo Ethiopia kadib MOU-gii ay kala saxiixdeen maamulka Somaliland Soomaaliya ka tirsan iyo dowladda Ethiopia wixii inta ka dambeeyay waxa socday hadallo fara badan oo la isdhaafsanayay iyo buuq fara badan oo xasarad siyaasadeed oo fara badan abuuray waxaan rabaa markaa inaan ku soo dhaweeyo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ka hadli doona ilaa qarnigii 19aad damaca Ethiopia waa uu socday marka damaca soo jireenka ah iyo taariikhda uu leeyahay sheekh inoo soo koobo insha Allah taala program saddex qaybood buu noqon doonaa qayb waa barnaamijyada culimada ay ka hadli doonaan waxaan igala qayb qaadan doona Dr. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir Dr. Khadar Sheekh Daciis Sugulle iyo Sheekh Shucayb marka qaybta labaadna waa su'aalo aan culimada weydiin doono wixii inta ka dambeeyana public aan u furi doona insha Allah taala hadii su'aalo ay qabaan marka sheekhan ku soo dhaweynayaa inuu baliir iftiimiyo damaca soo jireenka ah ee Ethiopia barnaamijka damaca Ethiopia Soomaaliya historically ama taariikhiyan waa wax sugan waaye Soomaaliya waxa ku nooshahay dhulkan xeebta ah ay degan tahay dhulkeeda waa 7 kaad aragteen ilaa Djibouti isku dar Ethiopia-na dhulka weyniga badan oo ilaa Sudan ilaa Eritrea ilaa maaragtay Kenya ilaa Uganda xuduud la leeyahay ku fadhisaa dhul weyn marka waligeed waxay damac ku haysatay ay damac ka rabtay inay hesho badda Soomaaliya laakiin mar walba waa ku fashilmaysay damaca Ethiopia ee Soomaaliyana waad garanaysaan taariikhiyan annaga dhul Soomaaliya haysata oo dhulka Soomaali galbeed la yiraahdo dadka muslimiinta umuuman way ba haysaa Ethiopia boqolkiiba 75 ay ahayd dadka muslimiinta مع ذلك وحلو اعتبار انه تاي ودن كريستيان وانا
waa dagaal aan aada loogu adkaystay oo taariikhiyan la garanayo 4 sano anagoo xor ah Ethiopia dagaal ku soo qaaday dowladda Soomaaliya xorta ahayd 64kii haddana waa garanaysan dagaalkii 77 intaasoo dhan waxaa keena damac ay leedahay marka waqti waa yar yahay research ahaan waxaan idiin sheegayaa historical research ay samaysay heritage xarunta cilmi baarista ee heritage ayaan idinkaga soo qaada insha Allah taala research ay samaysay which is very important there waxa historically Ethiopia has been landlocked and has sought a sea outlet internationally for most of her history, at least since the Middle Age. In 1976, Edward Gibbon, Edward Gibbon, oo ah historian oo Ingiriis ayaa wuxuu yiri wuxuu qoray hadal wuxuu leeyahay Ethiopia is encompassed in all sides by the enemies of the religion. The Ethiopian slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. يعني waxay ku xiran tahay dowladda Ethiopia dhulkaas go'doonka oo badda ka xiran ay ku xiran tahay waqti aad u fara badan waana lagu iloobay maartay sanooyin fara badan waa 1776 1776 waaye waa qarnigii 18aad yani awaakhirkiisii waxay leedahay waxa kale oo yani jiray historically Emperor Menelik kii labaad Menelik labaad of Ethiopia intensified his search for access to the sea in 1878 in a letter to the heads of the governments of Italy, France, and Germany and England be stated. Ninkan Menelik wuxuu warqad u qoray dowladahaas Ingiriiska oo ku jira Faransiiska Jarmalka warqad wuxuu u qoray warqadan uu qoray oo to the heads of the governments wuxuu leeyahay ninkan my road to the coast to Zayla to Jurra and Aden is at present closed by the Muslims. halkaas uu qoraya wuxuu leeyahay wadadii aan badda u aadi lahaa oo Zayla aan u aadi lahaa iyo Tujra waa Djibouti dabcan iyo Adanna waa ku dara oo dhinaca kale Yemen dabcan wuxuu leeyahay waxa ku hareeraysan waxa ku xiran wadamo muslimiin taa marka laga yimaado haddana waxa jiray qoraallo kale oo iyagana sidoo kale مثلا in 1952 marka wuxuu leeyahay Eritrea markii lagu daray Ethiopia oo looga dhigay federaalka yani asna hadal u qoray oo wuxuu leeyahay hadal aad u yaab badan ayaa qoray wuxuu leeyahay yani before 1952 when Eritrea, a former Italian colony on the Red Sea, was federated by the Ethiopian, the eyes of Ethiopian leaders were fixated on the Eritrean port of Assab and the Somali port of Zayla, both on the Red Sea. Menelik effort is ended in failure. However, Emperor Haile Selassie, who ruled Ethiopia from 1930 to 1974 relentlessly, sought to gain sea access to a letter to the United Nations in 1948. He wrote, prior to the race of European powers to divide up Africa, Ethiopia included an extensive coastline along the Red Sea and the Indian Ocean. Haile Selassie tried to annex Zayla, a historian Somali port, a town to Ethiopia between the 1920
and early 1950s to secure Zayla, he initiated a radical strategy of negotiating colonial powers to exchange the whole region for Zayla, which the current memorandum of understanding is said to be centered on, and which is adjacent to Djibouti. Hout is a large swath of Somali territory. waxaas dhan waa yani waa dadaal ay dowladda Ethiopia ku ay rabtay inay hesho access marba afay ku hadlaysaa waxay leedahay waa wadan muslimiin ku xayireen marka damacan mid istaagaya ma xil islaasi xitaa waa ku fashilmay marar badan wuxuu qoray maartay historically wuxuu qoray United Nations ka in uu access u baahan yahay dhul in badda helo waxa intaas oo kale dadaalay hadda ninkan Abiy Ahmed uu leeyahay barnaamijkiisa wuxuu ku yiri maartay xoog iyo nabadba waxaan ku gaarina badda si kastaba ha noqotee haddana wuxuu yiri markii lagu kacay adduunka iyo kacay ayuu wuxuu yiri haddana annaga in ka soo xoog badanahay oo aad haddana qoorta ma qabanayno inta qoorta qabanno ma dhahayn hadda xoog nagu sii dikala ku marjinayna ma dhahayn laakiin si kasta ku raadinayna marka damaca Ethiopia waxa markaan yaraa maqli jiray balcad ay sheegtaan xataa balcadan waxa mar u jirto meeqas kilomitir u jirta xamar 30 kilomitir u jirta Soomaaliya Ethiopia isbedeli mayso waligeed waxa waaye Minilik wixii istaraatiijigu isbedeli maaya waxa isbedelay waa Soomaali oo maalinba maartay Allah sahal waa ka baxay assalaamu calaykum aad u maasan yahay sheekha saad ogtihiin ba adduunyada waxa ka socda hardankaas tirada badan meelo badan ka socda wuxuu ku saleysan yahay dhul balaarsi marka su'aasha kale waxay leedahay Soomaaliya ma waxay noqotay qayb ay caalamku ay ku hardamaan waxaan iska leeyahay Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir Baskale بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. horta mawduucan shalay baan wuxuu uga hadlay qofkii raba beeshkayga amba Somali Minnesota TV waa ka eegi karaa insha Allah si balaaran xoog badan saacadii bar socotay yaan uga hadlay in la isku hirdinayo beeshata laakiin waxaan jecelahay maanta inaan dhag kale iska taago marka la rabo mas'alad noocana in la baaro waxa la iska taagaa saddex jaanib marka saddex jaanib baan dhaadhicinayna Soomaaliya ku dhaadhicin doona marka hore waxa la iska taagaa mowqica dawladdan la rabo dhulkeega ay ku taalo siidka meesha ay caalamka ka taalo waa muhiim xabadda hajista xabadda labaad waxa la baaraa locationka mowdica dawladdu ay ku taalo amba wadanku uu ku yaalo marka saddexaad waxa la baaraa abcaada dimishinka ay leedahay dimishinka ay dawladdaas leedahay imise bucudi iyay leedahay Soomaaliya waa labo Soomaali weyn waa mid Soomaaliyana waa mid weyn waxaan ka hadlaynaa waa jamhuuriyadda Soomaaliya oo jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa loo ictiraafsan yahay koonfur iyo waqooyi oo aysan ku jirin Soomaalida Ethiopia iyo Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Djibouti ayna ku jirin waxaan ka hadlaynaa markaa waa dawladda jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa looga ictiraafsan yahay jamhuuriyadda Soomaaliya imika lagu daray jamhuuriyadda Soomaaliya federaalka si ay doodeenu u cilmiyeysnaato arrintaas marka aan ka hadlayno waxaan eegaynaa tii ugu horeysay mowqic waa maxay waa politicalka juqraafiga arrintaas waxay qeexdaa juqraafigu wuxuu ka muhiimsan yahay historiga taariikhda dadkeena inta badan taariikhda aan ahmiyad siinaa
دكتور جمال حمدان واستراتيجي وين مصرية وقومي ها وقتي عبد الناصر بنتي رحمه الله جمال حمدان وهو قاري كتابه أبحيي شخصية الدولة المصرية سو مركز وحو قاري ليبيا مركز يمن بو قاري أرنتها سبحو مركز شاقي دولته جغرافيو إساقا تاريخ سمايا لكن تاريخ جغرافيو ما سميسو جغرافيو ماها ناتشر كجغرافيو كنت غير جامعة وعشان جغرافي شنتا جغرافي الصومالي ده هدان كل دقاجنو تابع كان يسأل الصومالي لجوميسو كو وجغرافيا بني آدم كبشرية قفك الصومالي لبا أرين بولي بني آدم لماذا دقدقاق بدن انزياح بدن وحكروا لي هاي عقلي أنا جيسك أفريقيا مثل لم يدو نفردين والديناميكي تأثير بين هذا الله جغرافيا دقالة جغرافيا دقالة دولك الصومالي ده وحياله دقالة ديلي تري أسبوعينية وحوق بدن قاس إلى بيرو يوحي ودحي بط وحول بط صدح وحاجر الجغرافيا صدح هذا مهمة جغرافيا صدح هذا مهمة وحويان وبوليت وحويان وجغرافيا استراتيجية ماشي الصومالي ده كنت هالله بعمل مهمة تصدحات بنكهل دون أبعاد أفر وحويان جغرافيا صومالي ده وجغرافي علاقة له جغرافيا كليتو أو كجرا قبلك وطننا عربته هي أفريقيا بقى علاقة له تاريخيا هي جغرافيا أريد أشرح هذا قدام يسوي جغرافيا الصومالي دولية وحويان وجغرافي آنا دقين مدقين ولي نهاية الجغرافيا الصومالية كما جرتو قفك الصومالي ما اعتراف سنو إنه دول كيسو كالقو أيهاي dadka noocaasina cabsi bay leeyihiin arrintaas waa mid weeyaan waxaan u imanaa locationka mawdica uu ku yaalo dhulkeenu Soomaaliya mawdiceegu waxa weeyaan location ahaan waxa weeyaan waa meel istiraatiiji ah istiraatiijiyadiisu waxa weeyaan Soomaaliya waxa cilaaqo la leedahay Hindiya Soomaaliya markay hawada laga xukumayo fadaaga xuduudeedu waa Hindiya ku jooga Soomaaliya dhinaca kale Cumaan iyo khaliijka cilaaqada xiriir Soomaaliya dhinaca saddexaad ee kaleeto waxa xiriir la leedahay Ethiopia dhulkii Kenya waxa min waraa Ethiopia Kenya ay xuduud la leedahay Suudaan koonfurta Suudaan ilaa Masar marka mawdica Soomaaliya ee maartay istiraatiijigi waa mid dawladaha bariga ah iyo dawladaha baxriga ah way galaysaa hadii xoog yeelato quwad badeed bay noqonaysaa waxaana noqonaysaa quwad bari taana ay dhig dhinaca abcaad oo beerna dimishika ama abcaad waxa weeyaan shan bucd bay Soomaaliya leedahay shan darar bay leedahay darar koobaad waa badda Soomaaliya waa badda Afrika ugu dheer baa dhacda لكن تاسي معنا بدل مشاكل بدر معنا بدل ملا ليبيا بدر بيلهاي قدافي روح كما سميسن أنا كنا بدر بالهاين دولة دي صوماليا وحودي كسميسن مجري لكن بدر معناه بدر معها بدر معناه وحويا وصدق هذا بد ولي بقى يصير استراتيجي وطن وأنديان وشيا وبدي عصيد وبدي عرب بحر العرب صدق ذي بدود بابا Soomaaliya way dul fadhidaa bad walbana ahmiyadeeda leedahay waa mid ku bataasi buudigaasi wuxuu u keenayaa Soomaaliya amba dawladda Soomaaliya wuxuu u keenayaa inay noqon karto dawlad istiraatiijikaal dhaqaale badan ka sameyn karta xoog badan sameyn karta hadii ay gacanta ku dhigto siyaadadeeda midda labaad waxa weeyaan buudiga labaad ay dawladda Soomaaliya ay leedahay waxa weeyaan waa buudiga basharka iyada ku xidhan ee dawladda kale ku nool oo adeegsan karta waxa amni qowmi Djibouti oo kale boqolkiiba 70 waa Soomaali weeyaan dadkaasi waxay ku xidhan yihiin Soomaaliya Ethiopia waxa degan mujtamac weyn oo Soomaaliya oo loo ictiraafsanay inay yihiin Soomaaliya kamid ahayn laakiin Soomaalinimadoodu wali aaminsan Soomaaliya hadii dawlad culus ka dhalato
واستعمالي كرتا كينيا سداس oo kaleeto intaas waxa ku dheer waxa isticmaali kartaa Soomaalidu muslimiinta Afrika degan oo dhanbarta Afrika iyada u noqon karta aabo marka waa buucdi muhiim ah taasi waa talabaad weeyaan arinta saddexaad waxa weeyaan buucdiga saddexaad waxa weeyaan Soomaaliya waxa loo ictiraafsan yahay dawlad Carbeed maadaama ay tahay dawlad Carbeed am baruna noqoto carabnimadeenu ama been noqoto jaamacadda carabta aan ka midnahay waxa aan leenahay buucdi Carbeed oo tagaya ilaa iyo maartay jasiiratul Arab si dhaafaya oo wixii maartay qurmi iyo qurmiba aan wadaagayna Carab buucdiga afraad ee leenahay waxa weeye waa buucdiga Afrikanismiga Afrikaanimadii ma leenahay marka waxa tahay qof waxaas oo dhan oo murakkab ayaa tahay mandiqadana waa fadhidaa saa muhiimka taasi marka maxay keenaysaa waxay Soomaaliya u keentay maaha Ethiopia waxa u keentay afar cadow oo afarta cadowba istiraatiiji ay yihiin cadowga koobaad ee ay Soomaalida cadowga ku awaay ma taqaana waa madaxda khaliijka gaar ahaan imaaraadka marabaan Soomaaliya inay ka dhalato dawlad awood badan oo xoog badan dagaal baa lagu hayaa waxaana loo isticmaalaa jaamacado waaweyn Soomaaliya ama loo soo gacan galin lahaa ama Suudaan looga dhigi lahaa labo cadowga labaad ee istiraatiijiga ee lana waxayaan waa cadowga sheekheenu ka sheekay waa Ethiopia waxa taariikhiyan ku dhiganay waa ognay laakiin mar dhowt waxay yiraahdeen waa la soo dhaafay waqtigii sida loo aaminsanaa barxalad kala galena laakiin barxaladii kale lama kaliya Abi Ahmed khudbadiisa ugu dambeeyay hadaa dhageysataan laba arrimood baa kala soo baxaysan arinta koowaad waxayaan inuu yahay in la soo diray Ilaahay baa soo diray la soo marka waa nin loo waxyoodo oo loo sheegay inuu noqdo boqorka Afrika marka taasi waa muhiim arintaasi wuxuuna ku jira qolo la yiraahdo ahlul wahyi dad la yiraahdo dad loo waxyoodo sidii odaygii loo oran jiray booshkii hore wali waa nool waa booshkii raay beebiga aha booshkii beebiga muxuu oran jiray waa lay waxyooda ha kana waa loo waxyooda inuu adduunka badbaadiyo markaas ninka taasi waa mid kood khudbadiisa ku jirta ma qariyo oo Ethiopia oo dhan aaminsan hooyadii baa u sheegto ku manaamtay sida siisa loogu manaamay inuu adduunka xukumi doono carabta bay hooyadii ugu manaamtay arinta labaad oo ninka leeyahay wax weeyaan ee uu khudbadiisa ku celiyay wax weeyaan ninkii la oran jiray Menelik wuxuu ka fikiray in uu dhiso maxay in uu dhiso derbiga Nile uu awoodi kari waay yaa dhisay Meles wuxuu ninkii Haile Selassie wuxuu ku manaamay inuu bad u keeno Ethiopia u hirgeli weey kii keenay badda waayo waa aniga markaa baddi waan keenaya arintii baddi way imartay baa madaxweynihii Muuse Biixi wuxuu ku yiri ahlan wa sahlan badda qaado anigana i'tiraaf waxa taa ka daratay wadankayga Djibouti ninkii wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri waa bar iska daa baddan barbare lagu haystee kaali tajuura iska qaado ana waa ku haya tajuura aslan tajuura waxaan u sameeynay Ethiopia hayde kaali iska baqaado ninkii waa ninkii Ismaaciil Umar Caraysnaa ee Muuse Biixi u gooyay cilaaqaadka ilaha Soomaali baa bad ka siinaysa tajuura yaale marka tajuura bixin Saudi marihid maxaa u dhaxay tajuuriyo maxaa ku dhahdaa iyo barbara maxaa u dhaxay iyo zeela iyo maxaa ku dhahdaa Abu al-Harb meesha wuxuu ku dhashay abi marka inta maxaa wax u dhaxayay ma jiro marka maxaa uga jeedaa wax way markaas cadowga saddexaadina waa taa cadowga afraad baan yahay cadowga afraad istiraatiijiga ah ay Soomaalidu leedahay wax weeyaan waa cadowga loo yaqaano dadka qaraarka dawliga haya wadan yar waxaan jira maanta loo dabaaldegayo madaxweyne markii afraad ku soo noqday oo dagaal ka dhacay dagaal sokay muxuu ahaa Afrikaanka ahaa ya Rwanda ha hadrate Rwanda hada meesha la isku fi xasuuqay oo markii dictator ba qabso markii afraad bas doortay marka ninkaasi ayaa tiirto markii la dhaarinayay waxaad yaabaysa sidoo dalku u dhismay yaa u soo gurmaday ninka inuu wada kala dhiso qaraarka dawliga international shaqada la socdo Soomaaliya maxaa lagu soo gurman lahayd
maxaa loo daawanayaa 5 sanadood maxaa loo la qaban laayay waa la qurunsanaya kelmadda xafidaya Soomaaliya waa la qurunsanaya waxa loo qurunsanaya marka la nuugo gaaska khaliishka waa dhamaanaya maraan dheerin 10 sano loo qabtay ba meesha badiilka ka ah halkee waa annaka weeyaan waa Jubbaland ba ka bilaabmaysaa Jubba ka bilaabmaysaa waxayna ku dhamaanaysaa magaalada Hadagaal la dhahdo oo ku taala gobolka Soomaaliya gumayso intaas oo dhan waxa yaala gaas dunida meel kale yaala xataa Qatar iyo Iran ma yaala gaas ka yaala waxaan anwar cishqi baan sheegay gaas ka baa loo soo wada xamaan qaatay waxaan xalay akhrinay saacado dambe wallahi nin la yiraahdo hayo waa ka soo qabay nin la yiraahdo Norwegian wuxuu qoray Soomaaliya waxay ku xiran tahay ammaankeedu inay gaaska gacanta ka garido shirkadaha reer galbeedka oo annaguna aan ka noqono simsaar xadada dilaal aan ka noqono dilaalka hadna siiso reer galbeedkuna gacanta ku dhigaan Shiina iyo Ruushna laga fogeeyo arinta Soomaaliya way dhamaanaysaa bahalkaasina wuxuu noqon doonaa buuri bahal weyn awar cishqina wuxuu yiri bariga dhexe mushkiladda ka jirta waxay ku dhamaan doontaa ayaanta gaaska la soo saaro marka bad oo looma socdee adoo dhan baa lagu socdaa adiguna waxaad ka shaqeynaysaa laba arrimood ma taqaanado aan ka shaqeyno waxaan ka shaqeynaa inaan sii sameysano laandiyaal badan land ayaan dhawata mid baan ku yidhi annagana ciise laad noo sameey baahi laad noqotay xabadii anaga noogu tuura ka yidhi harimaadiga ku yara ciyaar wax kale maxaan naade harimaadiha nahaba naqana wax kale dhaqaal ma jirto arinta labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan inta ku mashquulsanahay ma garanaysaa waxaan ku mashquulsanahay waxaan ka yaabay bal iminka furta oo maxaan maartay idaacadahan iyo turjaan bal dhageysta waxaad ka fajaxaysaa dad ka sheekeynaya wax aan ahayn wax laga sheekeeyo qolo balaayo qabiil dumar saxaya maxay dadkan meenuul misma noolo marka waxaan asustay andulus muslimiinta waxa looga qaatay shaqadan aan ku jirnay markaas la qaatay waan baasatay laga raano insha Allah salaam alaykum ma san yahay loolankaas adduunyada ka jira ee sheekha qayb uu ka tilmaamay waxa kamid ah mid dhaqaale ayaa kamid ah marka waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Khadar badda Soomaaliya waxay leedahay khayraad dabiici ah oo soo jiitay indhaha adduunka marka in loolankaas isagana dhinaca dhaqaalaha ah waxa inoo tilmaamo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم مدها انت الشيخ عبد الرحمن يبقى نقول في الليل بقى حنفلا يا زي ما كان انه الله هاي ان الله باهنين حيل ريال واجي هره لو باهن جرى حيل ريال wax taxliiliyo waxyaabo ka qarsoon banaanka soo saara laakiin hada dunidu way qaawantahay xoog baa ka socda xoog ninka geela la joogaana wax badan oo waagi hore aqoonyahanka ku adkaa inuu fahmo ayuu maanta fahmaya oday Soomaaliyeed baan gabay u leeyahay dhageystay asa waxa ku jiray wuxuu shanta qaaradood waxa ka riday qaylada iyo buuqa waxa qamarka guud iyo dayaxa qaraxa loo saaray waa quud nin haysta iyo nin raba inuu ka qaado inuu xoogay halka ku wata iyo nin raba inuu ka xoogo siyaasadda adduunka horta saas maanta ku sareysan tahay qodobka koowaad aan jecelahay inaan ka dhigto afeefahaan waxa weeye dunida maanta aanu ku noolahay way adag tahay hal dal inaad sidiisa u fahanto adigoo dunidu qaabka u dhisan tahay iyo isku xidhnaanshaheeda iyo damaceeda aan fahmin aniga iyo inta ila da'daahi waxa ay inta iga weyn waxaanu garaadsanay iyadoo dunida uu ka jiro nidaam loo yaqaano bipolar ama thunaiya alqud laba quwadood oo loolamaya iscashanaya dawladaha tamarta yarina ay ku kala saftaan nidaamkaas wuxuu soo afjarmay 1989 markii la dumiyay deerkii loo yaqaanay Berlin isbahaysigii Soviyetka uu burburay waxaana loo gudbay nidaamkii loo yaqaanay unipolarka oo Mareykanka iyo inta ku qaada oo hogaaminayay kaasna si aad la socotaan hadda waa laga gudbay wada dunidu waxa uu sii siqaysaa wax loo yaqaano multipolar quwado fara badan oo China uu ka mid yahay oo Russia ay ka mid tahay oo Hindiya oo xagga tira ahaan iyo nuclear ahaan la yareysan karana ay ka mid tahay oo North Korea meel kale lagu soo daro quwadaha marka loolan ayaa ka dhex dhashay
loolankaas waxyaabo badan buu salka ku hayaa laakiin laba qaybood baa ugu muhiimsan laba tiir baa ugu muhiimsan waa loolan xagga khayraadka ah loolan dhinaca khayraadka ah iyo loolan strategic location dhulka meelaha muhiimka ah waxaad ogtihiin dhulka ay dal ku yaalo ama dawladda ku taalo dhulkaas uu ka hiilin karaa ama uu ku hiilin karaa waxa jira book la yiraahdo Prisoners of Geography oo qoran la yiraahdo Tim Marshall buuga markaad akhrido waxaad arkaysaa dhulka aad ku taala sidaan sheegay inuu ku hiilin karo oo tusaale waxa kamid ah Mareykan oo maanta aanu ku noolahay Mareykan waxa la yiraahdo wuxuu u dhaxeeyaa laba badood iyo laba dawladood oo daciif ah dhinacna Atlantic Ocean-ka iyo Pacific Ocean-ka dhinacna marka isaga loo eego laba dawladood oo tamar daran oo Canada iyo Mexico buu ku dhex yaala taas waxay keentay Mareykanku waxa la yiri inuu proxy war meel kale inuu ku dagaalamo amba dhaxdiisa burbur ka yimaado mooyaane cabsi inaanu qabin in xuduudiisa lagu dagaalamo marka Mareykanku kol salaam meeshu ku yaala waa u hiilinaysa dalalka qaarna meelaha ay ku yaalaan ba ka hiilinayo oo Itoobiya dhulka nagu haysata ayaa kamid ah oo sharciga tusaale ahaan kale UN-ka loo yaqaano UNCLOS hadaan u hiilin Itoobiya maanta hadii ay abaara ka dhacaan ama jaaca ay ka dilaacdeen dhamaadaan ba laga yaabo Soomaaliya marka dhulalka mid kamid ah ayaa ku taala kuma noqonayo Sheekh Cabdiraxmaan ba si fiican uga warramay Soomaaliya waxa ku taala waxa la yiraahdaa 8 marin biyood ee adduunka ugu muhiimsan mid kamid ah kulaalaysa oo abaabul mandabka oo meelaha lagu